bahanta waa isku mid in la kala qaado dooni mayno nin Allah ninka kala qaadaya iyo cid Allah iyo cid isku dayaysa inay media intay soo fadhiisato ay dadkan masiirkooda iyo gobonimadooda iyo waxa weeye wixii Ilaahay ku gargaaray inay dib u celiyaan wallahi ka yeeli mayno horta sida ay garaadadu sheegeen halkan juhdi badan baa loo soo maray wad garanaysan gabadhii halka ka hadlaysana waa tii ay qiirootay oo isku oyday ciyaar kuma imaan inaynu maanta halkan nabadgelyo ku wada joogno meesha laga soo bilaabana waad garanaysaa inta wiil iyo inta hablood ee u shahiidana waad garanaysaa maanta in wixii anagu aan ku soo dhimanay ee idukuna aad ku soo dhimateen ee guda iyo dibadba dadku ay isku mid ku ahaayeen ee harti waxa weeye dhexda u xidhay in maanta saxaafad inta la soo fadhiisto la isu jawaabo oo wixii la doono lagu hadlo aqbali mayno waxa weeye dadkani waa isku mid weey waa dad wada dhashay waa dad hartiya waa dad SSC isku mid weeye dhulbahanta waa isku mid in la kala qaado dooni mayno nin Allah iyo ninka kala qaadaya iyo cid Allah iyo cid isku dayaysa inay media intay soo fadhiisato ay dadkan masiirkooda iyo gobonimadooda iyo waxa weeye wixii Ilaahay ku gargaaray inay dib u celiyaan wallahi ka yeeli mayno waxaanu idin leenahay dadkani waa isku mid harti waa isku mid sixni buu wax ku wada cunayaa SSC waa isku mid qabiil wax la yiraahdaa ma jiro ayaamaha waxaanu maqlaynay rag qurbaha jooga iyo kuwa halkan jooga oo rag iyo dumara in qof walba wuxuu doono ku hadlay arinkaasi waxa weeye arin xun buu ahaa arin aanu aqbaleynana ma aha deegaanka iyo dalkuna waa isku mid waxba lama kala laha harti baan waxba kala lahayn SSC baan waxba kala lahayn shacabkan waxba kala lahayn waxaanu leenahay ka waantooba kuwa qurbaha jirana waxaanu leenahay war Ilaahay ka baqa oo waxa weeye hadii aadna maqli weydaan waanu idin habaaraynaa kuwa gudaha joogana waxaanu leenahay indhahaanu idinku haynaa haddaanu mar dambe maqallo in media inta la isu soo fadhiisto kan waa reer hebel iyo tan waa reer hebel iyo sida weeye waxaasi waxba kama jiraan mana qaadanayno talaabo adagna waanu ka qaadaynaa sharcigana waa waafajinayna sharcigan waafajinayna kuwa gudaha joogana sharcigan waafajinayna kuwa dibadda joogana hadayna maqli waayo waanu habaarayna war meeyadin garanayn meesha ay taagneedeen meeyadin garanayn war waa maxay maanta sidee hal qof oo isku qof ah loo kala qaadaa war waxa ma maqli karno waxaan kaga faa'iideysanayaa xafladan dhammaan dadka ka soo jeeda gobolada SSC waa isku mid weey waa isku mid Ilaahay intaad ka baqdaan dhalinyaro wixii aynu soo marnay waad garanaysaane joojiya waxaad wadaan qofka khaladka wada waa la qabanaya qofku doona ahaado waa la isugu tagaya gudaha inuu dhigayna laakiin in la kala raaco oo reer hebel baa sidan war waxaan kuma shaqeyno wallahi inaan tan ka yeelin in waxa mar dambe lagu hadlo wixii aanu soo marnay baan ogna hadda baan idin sheegaya kuwa maqana media ha dhageysteen wallahi kuwa gudaha joogana beerkan dhulka u dhigayna kuwa dibadda maqana bartooda ku jooganayna ma maqli karo qabiil la kala qaadayo ma maqli karo harti la kala qaadayo ma maqli karo dad wax kala sheegan kara ma maqli karo dadka waxa wada hadeerba warning baanu siiraynaa dadku waa isku mid bileer baa waxa lagu wada cunaa waxa weeye waxba lama kala laha hawsha Puntland annaga inoo taala tanina waxa weeye dadkoo dhan bay u taala saas ay noo balano Soomaa qofkii waxa weeye maanta dad kala qaado waxaynu oranaynaa laamiga hadduu marayna waa qabanaynaa beerkeenu ka garaacayna dibadda hadduu joogana Ilaahay waxaanu ka baryaynaa habaari mayne waxaanu siinaynaa chance baan hadda siina haddii maanta wixii ka dambeeya qofkii qabiil ka sheekeeya iyo qofkii waxa weeye reer hebel ka sheekeeya iyo qofkii sidaasan ay ka sheekeeya warning baanu siinaynaa waanu habaaraynaa haddana dhaqanka sidaas ma aha kuwa gudaha joogana guriyahanu kala soo baxayna amar baanu siinaynaa ciidanka amnigu inay tallaabo ka qaadaan wixii hadda ka dambeeya dadku waa isku mid horena isku mid bay ahaayeen dadka hadda saxaafadda doonaya inay kaga faa'iideystaan Ilaahay ka baqaan u leenahay chance baanu idin siinay ma maqli karno harti wax ka